وهجاج ولي برامج كاني هرجلك أيام كوكو جرنا رجع كده قن مجالده وجير أيها كعبنا يشرقول أي شيئين إن dumarka مجالده سي أي udhigen Boqolal raga kuwaas oo lagu siray bikranimo been abuura sheeko arrimahaas la xiriirta waxa magaalada wajir inooga soo diray Xuseen Nuur Cilmooge waa xilli galab ah ayaantu waa axad goobtu waa magaalada wajir waxa ishayo guuxa iyo masaafaha dheer ee baabuurta waa mid ka mid ah gabaarida lagu galbinayo uuri ay iscalmadeen saygeeda oo waqti badan ku taamayeen in ay maalin wada aqal galaan balse sheekada lamaanaha iscalmaday waxa ku hoos jirto sheeko kale oo salka ku hayso qiyaano iyo dhagar loo maleego ragga aruuska ah ee qarashaadka badan ku bixiyo baaritaanno badan kadib waxaa noo suura gashay inaan helno mid ka mid ah gabdhaha ayada qiratay in ay shirqol u maleegtay saygeeda oo hadda ay u hayso 3 canug gabadhani ayaa naga ogolaatay in ay nala wadaagto sheekadeeda si ay noola qaybsato qaababka loo fuliyo dhagarta inta badan loo maleego ragga aruuska kuwaas oo islahaayeen waxaad jihada saarteen nolol farxad iyo reen ay ku dheehan tahay waxaan si ku meel gaar ah u qarin doonaa masawirka dhabta ee gabadhani si aysan dhibaato ugu dhicin ayada iyo saygeeda waxaan inta uu barnaamijka socdo ugu yeeri doonaa Xaliimo oo aan ahayn magaceeda dhabta ah Xaliimo waxa ay inoo sheegtay in rag badan oo Soomaaliyeed uu ka mid yahay saygeeda loogu been guuray bikranimo aan jirin ayada oo loo isticmaalayo kimikaal casri ah oo lagu yareynayo xubinka taranka ee dumarka Xaliimo ayaa ayada noo sheegtay in bikranimadeedii ay ku weyday wiil uu xiriir kala dhaxeyn jiray inta aan la guursanin ka hor laakiin ay go'aansatay inay isticmaasho daawadani si ay u qanciso saygeeda oo aaminsanaa in xaaskiisa uu guursani doono ay tahay bikro si uusan shaki u soo dhaxgalin guurkooda 7 sano gudahooda ka shaqeynaaye 6 sano ilaa iyo 7 sano waa waqti aad iyo aad u dheer marka magaalada wajir waxa jirto oo wali aan soo shacbixin in maaragtay dumarka waqtiga la digaalinayo saloonka la geenayo qalab loo isticmaalo ay jirto oo xubinka taranka lagu yareeyo si gabadha ayada habeenkii la soo galbinayo ugu muuqato inay tahay qof aan waligeed la isticmaalin marka arinta ayada maxad ka dhiilahay wadaynaysa misana noobe waa taas way jirtaa run waaye muddo 2 sano ay socotay sanooyin sano u socdeen sanooyin sidan ay u socdeen waana run taas way jirtaa marka arinka dumarka oo kaliya ka warahayaan raggi kama warahayaan anu kale og waayo rag waxay ogaadaan ma jirin anu kale gudahayna ku sameeyno marka qofka markii uu wax qalabkaas uu isticmaalo miyuu u muuqanayaa inuu maaragtay yahay qof oo sidiisii hore ku soo laabtay oo kaleeto habeenku ugu horeysnin waa u maleynay gabadho sidii hore leh ahaana u laan marka habeenka ugu hore wuxuu u maleyn karaa in maaragtay wixii dhan ay sidooda iska yihiin gabar cusub camal waa gartay gabdho baqaa jirta oo ninka balanka qaadeentay ninka loo tagaynin waana dhacday waayo sidaan gabdhoonahanaba inta meel ilana lagu haysto marabna sidaas darteed ayaan u sameeynaynaa arintaas lama dhihi karaa gabadha qiyaanada ay wado inay meeshaas ku joogsan karto oo mar horeba rag kale ayaa ninka ayaga gabadhii u guursaday la soo isticmaalay ma liis dhihi karaa gabadha markii la guursado ka damba waxyaabihii hore oo ay u soo martay inay ka garwaaqsato oo ninkeeda kaliya ay ku ekaato taas way jirtaa waayo hadda balse oo nin heshido oo ninka guur la gashid dareenka loo nin aadid ma qabaysid ku qarkooda iska sameeyana jirtaa haddii ka waran gabadha ay ileen waa qof horaan wax u soo arkay ninka hadda ay haysato oo xalaash u qabo ay ku qanci weydo marka loo eego kii u bilaabo ku laabato waxyaabihii hore ay u soo martay marka loo eego taas ma ka saa qaar ka mid ah shacabka ayaa sheegeen arrinkani ku soo korodhay magaalada wajir inay ku tilmaamayaan fasahaad walow ay sheegeen in xilliyadii hore ay jiri jireen qaabab kale oo dabiici ah oo lagu yareyni jiray xubinka taranka iyadoon la isticmaaleynin wax daaba ah amba kimikaal qodbintu waxa weeye maamoodinka maama sacnaysa jirta naagaha kama buulo joogada camal maama sacnaysa jirta gabdhaha oo maamoodinkan waayeelkan noqono dhaxda gabdhaha sacnaysa gabdhaha qashanka iyo qurunka iyo kasoo daaysa la dhaha
laakiin maamada idaha waxyaalo kalena way hagaajisaa way soo islaantaad hadda markay isla fiktiin meesha la isoo hagaajin oo la isoo dhaqay ku leedahay adigu ay israacdeen gudaha ay la gashay saan hoose iski walaxa lagu soo hagaajiyo waa la soo qodbay waa soo noqday waa la isoo hagaajiyay waa qurunkan waa iga soo daasay lagu dhahay ninka ragga qurunka laga soo hagaajiyay leemoy waa soo qodbay ma dhahayn taas horeyaan u aragnay يعني لما ملا يعني السكيدج oo baalka dad weynay waa la yareeyna markaan islaantu waxay noqon bixir amal laakiin tan daawada la sheegay aniga waa ikow tan hadaadan imaado waa fasaad kale maxay waxaan hadda bacrimin baa hadda wax la sheegay bacriminna bini'aadamka ma ku fiicno bacrimin qofka bini'aadamka sidii ilaahay ugu talagalay waa inuu ahaado hadduu sidii wax asagin lafadiisu isbadbadala oo saad rabta aad wayse hadii lafadaada waxa waay wax kale ku gala marka sidii runta qofka bini'aadamka qaabka ilaahay ugu talagalay wax ka bedeli kara ma laha waxyaalaha hadda bacriminta oo hadda soo galay wajeer waa wuxuu rag isku dili lahaa sidii runta nafta iskiga goyn lahaaba arrimahaas laga waantooba dib damana loogu noqon ninkii lagu arkana arrintaas tilaabaha ka qaado dawladda kuku ayaa waxa uu isaga noo sheegay in arrimahani aan horaan loo aqaani jirin balse haatani ay ku soo bateen magaalada waxa uuna sabab ugu dhigay in guurka qarashaadkiisa uu cirka isku shararay ayadoo la sheegay dhalinyaro badan oo guurdoon ah maanta in ay doorbidayaan inay gogol dhaaf sameeyaan si aysan faraha ula galin guurka qaaliyoobay oo sibiqda noqday saan haday noqoto magaalada dadku waa ragii oo yaraaday naagii oo lagu dhisnaa 1 milyan bar 1 milyan oo guurka hadan la sii qaalay cawada naagta markii la dhisay 100 gaaraysa daba dhiga kuna ma qaba haye 120 kun sariir joogtay 150 kun la keen 150 sariir gadaa lagu dhahay 150 sariir inta iska gadi 100 kun aroos ku dhistay laade masaakiinaad iska tahay 100 aroos ku dhistay aan saan soo wareegayaan soo helay 50 ko ama 40 ko ama 70 ko ama soo helay dadkan waxa gabadhii la tusay waxa la ninka sariirtaadna gabdhe aan waxaan baray sariirtan 8 kun ama 6 kun inaan gab naagta horta meesha ka u dumi idana taasna waa jirtaa wajir Sheekh Abdulwahab Cusmaan oo ka mid ah culamaa u diinka magaalada Wajeer ayaa qabo in arrinkani ku soo badatay ismaamulka Wajeer ay sabab u tahay guurka oo qiimihiisa cirka isku shararay isaga oo bulshada ugu baaqay inay fududeeyaan guurka si loogu gudbo arrimaha noocan oo kaloota ah wuxuu noqday shay qaali ah oo aan loo dhawaan karin ayuu noqday marka guurkii markii la waayay waxa imaaday marka zinadii iyo gaabsigii iyo gogol dhaafkii hadda aad sheegaysay yaa dilaacay kuwii markay dilaacayna si hadhow marka recovery loo sameeyay yaa marka bikra fake ah oo marka jelly iyo lagu sameeyay yaa la hagaajinaya waxa soo dhan runtii waxa keenaya guurkaas qaaliga ah ayaa runtii u sabab ah gabdhuhu diinta way akhristaan madrasooyinkay ku jiraan iskuulay tagaan diinta ilaahay mar walba way dhageystaan ha iska daayaan isku dayashada ay isku dayanayaan oo leeyihiin heblaayaba kuraasta loo dhigay ma aragtay 500 kun ay joogta 300 kun kursi kuraasteeda laga soo bixiyay anigana kuwaas oo kala raba heblaayaan ku dayanaya waxa ku dayashada waa inay dadku iska daayaan guurka ujeedadiisu waa in meesha labada qof ay ilaahay ku caabudaan la hagaajiyo meesha inuu ilaahay awlaad ma aragtay dalka iyo diinta iyo dadka anfacda inuu ilaahay meesha naga siiyo ya ujeedooyin waaweyn iyo goolkaas way goolka guurka ma ogid dhalaal yar oo kuraasa iyo maarta armaajado iyo muraayado meel taala iyo material yar oo saas oo kala arintu waa ka weyn tahay Sheekh Abdulwahab ayaa ugu dambeyntii waxa uu sheegay in dalada ay ku bahoobeen culamaa u diinka magaalada Wajeer ay mustaqbalka dhow bilaabi doonaan wacyigelin ku saabsan guurka ayada oo lagu haminayo in la hergeliyo barnaamij dowrkeen ugu weyn jazakallahu khayran wuxuu noqon karaa inaan annaga wacyigelin wax la yiraahdo aan sameeyno bulshada aan baraarujino dadka aan u sheegno runtii inay guurkii ay raqiis ka dhigaan sidan haddaba aan sameynayno laakiin mustaqbalka haddii ilaahay subxaanahu wa tacaala uu raali ka ahaado waxaan isku dayaynaa bal inaan arrimo kaloo cusub ama nidaam cusub oo guurka ah inaan runtii la nimaadno annagoo dhallinyarada dabcan la kaashanayna مثلا tusaale ahaan waxaan ku soo qaadi karaa Suudaan oo kaleeto waxa marmar qaar ay dadku bilaabeen 30 wiil iyo 30 gabdhood hal habeen in la isku daro oo marka laakiin neefko kaliya meesha lagu wada qasho meesha maaragtay kuraasto la dhigto halko xaflad la wada hagaajiyo meesha nin walba gabadhiisa uu halko gaari ku qaato
يعني waa 30 qof way marka taasna marka waxay ku tukanaysaa mass marriage waxa la yiraahdo runtii hadii ay dhalinyaradeenu kari karaan associationadooda yar yarka oo ayaga ay leeyihiin oo hoose dhalinyarada marka inaan mass marriage kaas aan ku dhiirigelino 5 7 8 hal maalin inay arooskooda dhameystaan 7 kale in maalintooda isku daro waayo qarashkiis qofka kaligiis kama bixi karay si collective oo wadajir ah marka in loo sameeyo mustaqbalka waxay ka mid tahay waxyaabaha runtii hadaan culimada nahay aan ku dhiirigelinayna dhalinyarada ururadan yar yar ee dhalinyaradu ay leeyihiin aan leenahay talaabada iyada ah bilaaba idinka si ay u noqoto marka talaaba looga gudbi karo guurkan hadda nahaya ee qaaliga ah haddaba su'aasha la isweydiin karo ayaa ah ilaa goormay soconi doontaa dhagarta noocan ah imisa rag ayaa ilaa iyo hadda dabintani loo dhigay ma tahay xilligii ay qaybaha kale ee bulshada u xusul duuban lahaayeen sidii loo dabargoyn lahaa khiyaanada madowga dhex dhigtay qoysas badan oo Soomaaliyeed